hawl qabadu hanuunsana dantaadana hagarkada dantaadana iyiga geli horumarka tilmaanta hogaanshiya ku xira horaarta dhaba dhulkaagana hoosu dhugo iyiga geli horumarka tilmaanta hogaanshiya ku xira horaarta dhaba dhulkaagana hoosu dhugo عرابو حليلة إيو هيان قرينو نهاي عرابو حليلة إيو هيان قرينو نهاي هشيسك يو هدفكوا إنان هكذا مرنو بالشوي هلكوها منا قل جيد مساء قن ujeed deegaankaasi waxa uu ka mid yahay deegaanada ku yaala guud ahaanba gobolka Awdal degmada Qurjeed waxay hilaada 35 kiiloomitir dhinaca galbeed ka xigtaa magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal waana deegaan u dhaxeeya xuduudda Somaliland iyo dalkaasi Itoobiya degmada Qurjeed waxa ka soo jeeda madaxweynihii hore ee Somaliland mudane Daahir Rayaale Kaahin waana degmo inta badan isbedel uu ka muuqdo gaar ahaan dhismayaasha hadda magaalada ku soo kordhay sidoo kale waxa xusid mudan in halkaasi hore ay ugu yaaleen guryaha aad arkaysaan muuqaalkooda ee dergadaha loo yaqaanay kuwaas oo haatan isku bedelay dhismayaal caadiya maadaama horumarka Qurjeed uu marba marka ka sii dambaysa isa soo tarayo deegaankani waxa uu caan ku yahay isla mar ahaantaasna lagu xasuustaa in lagu caleemo saaray Suldaan Abubakar Cilmi Wabar suldaanka mid kamid ah beelaha dega gobolka Awdal sanadii 2011 haddaba Qurjeed waxay ka tirsan tahay magaalooyinka ka tirsan gobolka Awdal ee haatan isbedelka horumarneed uu ka muuqdo buur caan ah ayaa ku taala deegaankaasi taas oo magaceeda lagu magacaabo qun ujeed halkaasi ayuu ka yimiday magaca degmada Qurjeed gudoomiyaha degmadaasi Qurjeed oo wax ka weydiinay horumarka iyo asal ahaan magaca Qurjeed halka uu ka yimiday iyo arrimo kale ayaa isaga oo nooga waramaya waxa uu sheegay magacaygu waa Maxamed Hadoon Cismaan waa bari waa gudoomiyaha degmada Qurjeed markaan ka warramo magaca Qurjeed waxa weeye magaca Qurjeed waxa la yiraahdaa buurta waxa weeye wuxuu ka yimid af Soomaaliga qun ujeed buu ka yimid qun buu ujeedaa qibla ujeed weeye waxa la oran jiray markii muxuu ahaa af Soomaaliga hore waxa qiblada ujeeda iyo qun ujeed la oran jiray buurta oo qun ujeeda oo xagga qiblada ujeeda ayaa markaa Qurjeed ay ka timid waa sidaas magaca Qurjeed ta kale horumarka degmadu sanadba sanadka ka dambaysa ayuu soo kordhaya oo dhaqaale ahaan iyo muxuu ahaa isbedel way aragnimo ha ahaato muxuu ahaa dhinac walba ha noqoto markii hore gargaday ahaan jirtay magaalada qaybeeda u badanay imika waa ku hadalkaysan oo dhismayaal yaa ka socda caafimaadka iyo waxbarashadu aad iyo aad ayay u fiican yihiin waxbarasho waxa ku yaala waxbarasho marka la yiraahdo dugsi hoose dhexe sare saddexdaas ku yaala saddexdana way cimreen wadad caruur ilaa 700 ilaa 800 oo dhalinyaro ayaa dhigata si fiican bay u socotaa waxbarashadeedu caafimaadka MCH weyn baa ku yaala في دلان كي هو يده يكون مناسبة كيالا بيو آدي آد بفعين هنا بيوها عوحة كيالا مقالة عيل خرية وين بكيالا حتى من خواتك تايو هالكن كيدا عرسات من دون دهال كيان مكبرك الوضح تكسير دبدو كيدا عرسات بجد نحو الله وصاصي وجوجان كوي صاق عي كوي ديان مركا عيل كاسو بيو ولا حق بالباقي لقاها قبل أي deegaanada han maamulada ay biyo ka fog yihiin mooyaan laakiin degmada intani gudaha ama dadka soo barakacaynka yaaliin biyo aad bay u filan runtii qurbo joogto wax badan way qabteen wax badan oo u dhiman yahay waxa ay qabtaan waxa kamid ah aqaladan imika joogno ee dawladda hoose iyo ka soo dhisay kuwa Mareykan jooga iyo kuwa Ingiriiska jooga ee qurbo joogto u dhalatay degmada Qurjeed in dhakhtarka oo kale wada kartaa deer weyn oo ku meersan iyo ka ayaa deerka soo xiray oo dhakhtarkaas oo bilaadiira deerka ku soo daray
waxa badan noo dhimanana waxa weeye saddexda guri ay dhiseen in deyrkii ay ku wareejiyaan muxuu ahaa aqalkii martida ee degmada oo iyaduna noo dhiman si kastaba ha ahaatee degmada Quljeed ee ka tirsan gobolka Awdal haatan isbedel horumarineed ayaa ka muuqda oo dhinac kastaba leh haday tahay xagga waxbarashada caafimaadka biyaha iyo guud ahaan qaab dhismeedka magaaladaasi walow magaaladaasi aanay lahayn wada laamiya oo isku xidha Boorama iyo magaalada Quljeed hase ahaatee loo baahan yahay in qurbo joogta gobolka Awdal ay ka qayb qaadato dhismaha wada isku xidhaysa Boorama iyo Quljeed si horumarku halkaas uga taaba qaado warbixintani waxa idin soo diyaariyay waa anigoo aan nuxkadiye tan iyo kulanti dambe isma dhaafne amaan Allah